madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha 9aad safar shaqo uga baxay dalka jamhuuriyadda jabuuti ee aynu jaarka nahay. safarka shaqo oo qaadan doona muddo kooban ayaa isla maanta markay gaadhaan dalkaasi jabuuti wafdiga madaxweynuhu waxay si rasmi ah u gudagali doonaan howlaha shaqo ee ay dalkaasi u tageen. ujeedada safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xidhiidhka qotada dheer iyo iskaashiga horumarka ee ka dhexeeya labada dal ee jamhuuriyadda somalilan iyo dalkaasi jabuuti. waxaana madaxweynaha safarka ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan. tuugayga noloshana cidan uga dambeeyo ina doorkan laytan duruufii dhacay baray